Galcad Media News. Galcad Media News. ismaqal wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooron al-shabaab oo war culus ku qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Beledoogle qarax xoogan oo lagu weeraray ciidamo badan oo Talyaani ah oo ka dhacay Muqdisho dagaal culus oo Soomaaliya anfar ku dhex maray dalka Itoobiya al-shabaab oo soo bandhigay ergadii dooratay gudoomiye Jawaari howlgalo dad badan lagu soo qabto oo ka dhacay Boosaaso warka dibadda daawadayaal waxa kamid ah Turkiga oo diyaaradan la shaacin ku soo riday xadka Suuriya xagga hadii aan ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelka si aad u hesho war ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. al-shabaab ayaa barqanimadii maanta weerar ku bilowday qaraxyo waxa ay ku qaadeen saldhigga ciidamada militariga Mareykanka ay ku leeyihiin deegaanka Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose weerarkan ayaa ku bilowday baawur raga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kuwa oo lagu dhuftay albaabka laga gala saldhigga ciidanka militariga Mareykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose wararka ayaa waxay intaas ku darayeen taasi kadib ay rag hubeysan oo shabaab ka tirsan ay isku dayeen inay gudaha u galeen saldhigga inkastoo aanan u suurta gelin saldhigga gudaha u galaan dagaal muddo kooban socday kadib ayaa ciidamada saldhigga ku sugnaa waxa ay toogteen raggii soo weeraray saldhigga kuwa oo doonayay inay qaraxyada kadib ay ka dhex dagaalamaan saldhigga lama ogeylay haatan qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas qaraxyada iyo midka tooska ahba iskugu jiray hase ahaatee al-shabaab oo weerarkan sheegtay waxa ay war ku qoreen warbaahintooda ku sheegteen in qayb ka mid ah saldhigga ay qabsadeen war ka soo baxay militariga Soomaaliya ayaa dhinaca kale lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibadooda Mareykanka iska caabiyeen weerar ay al-shabaab ku doonayeen in ay ku carqaladeeyaan howlgallada ka socda gobolka Shabeellada Hoose weerarada noocaan ah ayaa muddooyinkii dambe al-shabaab waxay ka geysanayeen xirooyinka militariga ee ku yaala Shabeellada Hoose garoonka diyaaradaha Beledoogle ayaa waxa ku yaal saldhigga ugu weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay Soomaaliya waxaana sidoo kale degan ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waana goob amnigeeda aad loo ilaaliyo ka hor gudaha saldhiggana waxaa ka horeeya koontaroolo badan oo amniga saldhigga laga ilaaliyo qarax xoogan ayaa la eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada Talyaaniga oo marayay meel u dhow kuliyada Jaalasiyaad ee jidka wadada warshadaha kuwa uu ka yimid dhanka wasaaradda gaashaandhigga qaraxa oo xoogana ayaa la sheegay inuu sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba walow aan la sheegin khasaaraha gaaray kolonyada Talyaaniga ee la eegtay qaraxu goobjoogayaal inala hadlay ayaa inoo sheegay inay arkeen dhaawacyo soo gaaray dad ku sugnaa suuqa ariga ee degmada Daynile kuwa oo ka agdhawaa halka uu qaraxu ka dhacay Ismaaciil Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay inuu arkay 3 ruux oo soo gaaray dhaawacyo culus oo shacab ah oo durbadii loola cararay isbitaalada Muqdisho qaraxa wuxuu ka dhacay isgoyska kuliyada Jaalasiyaad meel aan sidaas ugu fogeen oo ku beegan dalka halka loo yaqaan suuqa ariga ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir niyaha waxa la eegtay gawaari 3 gaaraya oo kolonya oo halkaas marayay oo ay wateen ciidamo Talyaani ah ilaa hadda waxaan arkay 3 qofood oo dhaawac oo kaliya wax dhimasho inkastoo aan arkin oo xaaladda xaalad aad u adag 1 Oktoobar sanadkii hore 2018 ayay ahayd markii sidaan oo kale isla goobtan lagu qarxiyay ciidamo Talyaani ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga kuwa oo soo gaaray sida la tilmaamay waxyeelo kala duwan Soomaali badan ayaa lagu laayay ismaamulka Soomaalida Itoobiya wararka naga soo gaaray ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay dagaal u dhaxeeyay Soomaalida iyo Canfarta oo ka dhacay halkaasi dagaalka ayaa yimid kadib markii koox ka tirsan Canfarta ay weerar gaadmaha ku soo qaadeen Soomaali xoolo dhaqato ah ku sugnayd deegaanka Alaale oo hoostaga maamulka Jigjiga ugu yaraan 14 qof oo Soomaali ah ayaa ku dhintay dagaalkaasi halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 10 kale sidoo kale wararka
ayaa intaasi ku darayay in deegaanka Alaale ay la wareegeen canfarta halkaas oo horey ugu sugnaayeen xoolo dhaqato Soomaali ah ma jiro wali wax war oo ka soo baxay ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo la xiriira dagaalkaasi xaaladda ayaa haatan kacsan iyadoo xiisad u dhaxaysa Soomaalida iyo canfarta laga dareemayo goobta uu dagaalku ka dhacay mid ka mid ah dadka Soomaalida ay ku sugan halka uu dagaalku ku dhacay ayaa ka warbixinaya khasaaraha ka dhashay iyo cidda weerarka soo qaaday maani waarin joogto oo lagu soo laalaamo marka bulshada meesha joogto shacabkii xoolo dhaqatada ah iyo dadkii reer magaalada deganaa oo iska caadiyeen marka dhimasho aad u fara badan ayaa nagu dhacdaanay xagga naga dhimashada aad u badan 14 qof baa naga dhimatay oo ku shahiiday dagaalkii maanta shalay ka dhacay Alaale dadka ruuxna waa dhaawac calafiyaana weli gargaar meel la geeyay xarun caafimaad aan haysanin taageero weli meel aan ka haynin ma jirto marka shacabkii meesha deganaa 14 ruux baa ka baxday dadana waa dhaawac Alaale horta wallahi dhulkii la isku haysto waa garba irisa indufo iyo cadaytiga ay Alaale waxay hoos tagtaa degmada Abdinda hoos tagtaa gobolka City marka deegaanka Soomaalida ay iska tahay Alaale meel waxa haysashadana maaha meel ay canfartuna iyo Soomaalida isku haysateen maaha waa meel dhul deegaanka Soomaalida ka tirsanayaan marka waxay nagu soo qaadeen waa dagaal iyo dalbalaar sidii wadaan marka tanna tiimka una ma inay waa dagaal joogto ay nagu hayaan iyo dib badan ay dadka shacabka xoolo dhaqatada iyo reeriga ay ku hayaan abaaro hayaan maanta qabalaha Alaale tilida Alaale waa kuwa naga barkiin shacabka iska difaac marka dul ayay rabaan inay naga qaataan hadda wallahi annaka gacanta ku haysano Al-Shabaab oo soo bandhigay ergadii dooratay Professor Jawaari kooxda Al-Shabaab ayaa deegaanka Buurofoola ee gobolka Baay ku soo bandhigay qaar ka mid ah xubnihii soo doortay baarlamaanka federaalka kadib markii ay qaateen amarkii ay ugu yeertay kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in ergadan oo ah 76 qof ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii doortay xildhibaan Maxamed Cismaan Jawaari oo hore u ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ka hor inta aan lagu ridin dagaal ay ku qaadeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha Al-Shabaab ee gobolada Baay iyo Bakool Sheekh Cabdullaahi Macalin Geedow iyo xubno oo ku jira Sheekh Cali Katiin ayaa dadkaas kula hadlay munaasabad ay qabteen shabaabka odayaasha ayaa shabaabka soo bandhigay qayb ka ahaa dufcadii saddexaad ee iska diiwaan gelisay kooxda Al-Shabaab oo ay bilihii la soo dhaafay ugu tagayeen ergooyin badan waxa ugu dambeysay kow ergo oo lagu soo bandhigay munaasabad ka dhacay degmada Bu'aale kuwaas oo iyaguna sheegay inay ka soo laabteen falkii ay hore u sameeyeen sida ay shabaab sheegeen wararka ka imaanaya deegaan lagu magacaabo Ceelmuluq oo hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in qarax loo maleynayo inuu yahay miino uu ku qaraxay caruur yaryar kadib markii ay ku ciyaareen caruurtan ayaa sida la sheegay aaladan gargaraacay kadibna ay ku qaraxday qasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka soo gaaray caruurtaas aaladii ay gargaraaceen inta la ogyahay 3 caruur ah ayaa ku dhimatay waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray caruur gaaraysa 4 kale mid ka mid ah dadka deegaanka Ceelmuluq ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida ay wax uga dhaceen deegaankaasi deegaanka lagu magacaabo tuulada Ceelmuluq waxyeelo ay geysatay marka waxa ku geeriyooday waxyeeladaas 7 qof ayaa waxa waxyeelo ka soo gaartay waa waxyaabaha qarx aaladaha qarx waxyaabaha qarx waxa ku ciyaaraysa caruur ayaa gargaraacayay iyadoo aysan aqoonin waxa waxyeeladooda sidaas awgeed ayaa waxyeelada u soo gaartay caruurta marka saas ay wax u dhaceen waxyaabahan oo aad aysan u moodin inay waxyeelo geysan karaan caruurta sidaas darteed ayay u soo qaadeen dadka qaar waxay leeyihiin way gargaraaceen kuwana qaar waxay leeyihiin dib ayay ku qabteen sidaas ayaa waxyeelada ku soo gaartay caruurta intaba caruurta waxay u dhaxaysaa 15 jir ilaa iyo caruur yar oo ilaa 6 jir dhaawac guud 7 waaye 7 ayaa waxyeelo soo gaartay 3 ayaa geeriyootay alaanadan dhaawac xaaladooda aad ayuu laban yahay qaarna waxaa la leeyahay waa culus yahay laakiin inta hadda dhaawacantay 3 dhimashada marka laga reebo aad ay fiican yihiin saas ayaa la leeyahay ma sidaan xubin ku hayna alaanadan wax ka hadlay ama maamul ama wax ma aysan jiraan deegaanka waxaa la yiraahdaa tuulo lagu magacaabo Ceelmuluq oo u dhaxeeyo deegaanka tuulada Biicade iyo degmada Cadale gaar ahaan hoostagta degmada Cadale halkaas weeyaan agagaarka deegaankan waa markii uu horeeyay marka laga reebo 2 caruur oo yaa sii horeysay waxyeeladan oo kale ay soo gaartay dhowr mar ayaa sidaan oo kale waxyaabo qarxa ay caruur ku dheelin waxa ka soo gaaray qasaare dhimasho iyo dhaawac leh
howlgallo dad badan lagu soo qabtay ayaa laga sameeyey magaalada Boosaaso. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamada amniga ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso, xarunta ganacsiga maamulka Puntland. howlgalladu oo kuwa ballaaran ayaa waxay ciidamada ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaaladaasi. sidoo kale ciidamada ayaa baarayay gaadiidka qaybihiisa kala duwan iyo dadweynaha si loo xoojiyo nabadgelyada. taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Xuseen Cali Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in baaritaanadaasi lagu soo qabtay ku dhawaad 20 qof oo u badan dad dhalinyaro ah. waxa kale oo intaas ugu darin haatan ay ku socdaan baaritaano dheeraad ah isla markaana la sii doon doono cidii aan dambi lahayn. gudooyinkii dambe amaanka Boosaaso ayaa laga deerinayay iyadoo cabasho ay ka soo yeerisay shacabka magaaladaasi. Turkiga ayaa diyaaradan la shaacin ku soo riday xadka Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga dalka Turkiga ayaa sheegtay in ciidamadooda hawada ay soo rideen diyaarad aan la shaacin oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee droonka. wasaaradda ayaa sheegtay in diyaaradda ay hawada dalka Turkiga soo gashay dhowr jeer ka hor inta aan la soo ridin. laba ka mid ah diyaaradaha dalka Turkiga ayaa ku guuleystay inay soo ridaan diyaaradda ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda difaaca Turkiga. sanadkii 2015 Turkiga ayaa soo riday diyaarad laga leeyahay dalka Raashka taasoo mareysay xadka u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Suuriya. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa la sheegay in maanta oo Isniin ah uu kulan la leeyahay golaha amniga qaran ee Turkiga hogaamiyaasha shacabka iyo kuwa militariga. waxyaabaha ugu weyn ee kulanka looga hadlayo ayaa lagu sheegay arrinta Suuriya. dhacdadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Suuriya Walid al-Muham uu dalbaday inuu Suuriya ay si dhaqsi ah kaga baxaan dhammaan ciidamada shisheeye. daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelka Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.